haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 7aad oo ah dastuur aad loo bedelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo kaliya u bannaan inuu 2 jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina nirir xalaala ma dhasho رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد بري أيا وير أفكا أحمان تكو قاضي مامولك جبلان يهجاميها مامولكاسي أحمد مدوبي رئيس الوزراء الصومالية حمزة عبد بري أيا أسوغو مانتا خطبت كجيدين أي مناسبات وحلك كل وريغي تليها عصب عيدن كحوق الدلكا أيو وير لنا عيب بدن أو أفكا أحكو قاضي مامولك جبلان يهجاميه أحمد مدوبي حمزة عبد بري ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu qayb ka ahaa heshiisyadii dalka loogu jiheynayo doorasho qof iyo cod waxa uu xusay in dhammaan saxiixyadii ay saxiixeen Jubbaland heshiisyadii dalka uu horseedi lahaa in dalka uu haatan ka qabsoomo doorasho qof iyo cod ah sida muuqata muddooyinka ugu dambeeyay maamulka Jubbaland ayaa si weyn ugu soo horjeestay in dalka uu ka qabsoomo doorasho qof iyo cod ah isagoona ka biyadiiday dowladda dhexe ee Soomaaliya hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Madoobe ayaana shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhawaan ama bishii ugu dambeeyay ka qabsoomay magaalada Muqdisho isaga baxay isagoona markaasi dib ugu laabtay magaalada Kismaayo intaasi kadib maamulka Jubbaland iyo Axmed Madoobe ayaa sheegay in doorasho u madax banaan maamulkaasi ay qabsan doonaan walibana ah doorasho dadban dowladda Soomaaliya ayaa shirkii golaha wadatashiga qaran waxa lagu heshiiyay ama ay soo saartay in maamul goboleedyada la siin doono muddo kordhin hal sano ah balse Jubbaland ayaa arintaasi ka soo horjeesatay walibana sheegtay in haatan muddo kordhin aysan dooneynin walibana dalka haatan diyaar uusan u ahayn doorasho qof iyo cod ah walibana uu qabsanayo doorasho u madax banaan arintaas ayaana dhalisay khilaaf xoogan oo muddooyinka ugu dambeeyay heerka ka dambeeyay si siyaadayay khilaafka labada dhinac ee dowladda dhexe iyo Jubbaland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo deegaan doorashadiisu ay ka soo jeedo maamulka Jubbaland ayaana maanta fursad uu ku helay in uu ka hadlo arimaha doorashooyinka iyo mucaaradka ka soo horjeeda arinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ee wado in dalka uu ka hirgalo doorasho qof iyo cod ah Xamza Cabdi Barre ayaana weerar dhinaca afka ah walibana dhinacyo badan taawanaya ku qaaday maamulka Jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta hore hoggaanka dalka u soo qabtay iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay shirar gooni ah ku qabsanaya magaalada Muqdisho kuwaas oo ka soo horjeeda hanaanka iyo sidoo kale qorshaha baarlamaanka Soomaaliya ee labadiisa aqal ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee ku aadan guddiga dhismaha doorashooyinka dalka walibana loo diyaar garoobay in dalka oo ka dhaco doorasho qof iyo cod ah Xamza Cabdi Barre ayaa si jees ugu hadlay arinta in doorashooyinka dalka isagoona ugu digay mucaaradka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland in ay ka hor yimaadaan qorshaha ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ah in dalka ay u jiheyaan doorasho qof iyo cod ah walibana ay marnaba niyadooda ay ka saaraan in dib dambe loogu noqdo teendhada Afisiyoni iyo doorasho dadban uu maamulayo hal shakhsi Xamza Cabdi Barre ayaana sheegay in aysan ahayn siyaasiyiinta haatan khayradhaanta ka muujinaya arinta dowladda ay wado isagoona sheegay in aysan ahayn in ay ka cabsadaan ama ay ka baqaan in codka ay u dhiibaan shacabka si halkaasi looga soo doorto ma ahan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha in haatan waxyaabihii aan ka soo gudubnay aan dib ugu laabano dhowr sano ka hor ee ahaa in dalka doorasho dadban weligiis uu ku jiro ee haatan farqaha la isku dhago walibana laga roon yahay in dalka jiho dhinaca kale loo jiheeyo si ay dadka Soomaaliyeed ugu ciilbaxaan codkooda ayna doortaan hoggaanka iyo sidoo kale mas'uulka ay doonayaan haddaba daawada sidee u aragtaa hadalka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ku qaaday weerarka dhinaca afka ah maamulada Jubbaland iyo sidoo kale hogaamiyaasha ama siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda ka soo horjeeda ama si weyn ugu soo horyimid arimaha doorashooyinka dalka maxay noqon doontaa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre hadalkiisa dhinaca doorashooyinka ma kula tahay dalka inay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah ay shacabka codkooda ay ku dhiibanayaan qofka ay dooranayaan
fikirkaada noogu dhiib qaybta hoose ee commentiga haddii ay taa markii ugu horeysay muuqaalku kusoo gaaro fadlan like saar siina share garee si saaxiibada u gaaro page-kana follow dheh waad ku maasantaa daawashadaada